Sahra Shariif, 54 jir ayay ahayd markii ay isdishay. Cudurka kansarka ayaa lagu sheegay. Inankeeduna wuxuu islahaa hooyadii waxay u dhiman doontaa cudurka, balse weligii muu filayn wixii dhacay. shoog ayay dhimashada hooyada igu noqotay, weliba sidii ay u dhimatay. hooyaday dhimashadeedu aad ayay ii saamaysay. way igu adag tahay hurdada habeenkii. way igu adag tahay sidii aan nolosha u wadan lahaa. hooyaday waxaa ku dhacay xanuunka dhimirka. markii hore isma lahayn aad ayuu xaalkeedu u xumaa, laakiin tusaalooyin ayaan arkay. Sahri waxay ka tagtay 5 inamood. ninkeedana waxaa laga helay xanuunka kansarka oo ku faafay maskaxda. Cadnaan walaaladii ayuu dhexda u xidhay. mas-uuliyaddaas anigay isaaran tahay inaan ilaaliyo carruurtii hooyaday. carruurtaydii oo kale ayay hadda noqdeen. Si aanay u baabi'in xasuusta hooyadii, Cadnaan wuxuu go'aansaday inuu lacag ururiyo si uu ceelal iyo masaajid ugu dhiso dadka danyarta ah ee ku nool Afrika. masaajid dadku isugu yimaadaan oo ay si kal iyo laaba uga hadlaan dhibaatooyinka haysta. haddii ay dhimar leeyihiin, haddii dhaqaale la'aan hayso, waxa ay doonto ayay noqon kartaa. Sahra walaalkeed waxaa saamaysay xaaladda. waxaa aad u dhibay in aanay bulshada Soomaaliyeed aqbalin xanuunada dhimirka. Soomaali dhan arrintan mental issue la dhahayo ceeb ay u arkaan. marka arrinteena ma bala xalli karo. waxaa uu dhahaa doctor Allah waca maya ala wicin ya la waca sheekh ala waca sheekh macas qawana qur'aan isku akhrina waa ogolay qur'aan u akhri hatta kacbada ala waca madiidni laakiin at the same time doctor kan Allah sheego waxaad khaasatid way ku kharsadaan aniga waxa kaasa war kuligeena hal aan dhimayna the reason aan dhimayna waxa barbalemkeen aan qarsoona selo ogaha xanuunada maskaxiyanku aad bay u halis yihiin. maanta halka waxaan ku ogaanay in Cadnaan iyo adeerkiiba aad u rabaan in dadku u fiirsadaan, hoosna u eegaan qofkii maskaxiyan u xanuunsanaya, in aan laga xishoon xanuunka oo aan la qarsan. Cadnaan wuxuu doonayaa inuu weheshado xusuusta hooyadii. waxa kaloo doonayaa inuu tusaale u noqdo